kulankan ay maanta yeesheen baarlamaanka Galmudug waxaana soo xaadiray 116 mudane oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug waxaana shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koobaad iyo kan labaad ee baarlamaanka Galmudug ajendaha ayaana waxa uu ahaa meelmarinta xeeroosaadka baarlamaanka Galmudug kaas oo kal hore xildhibaanadu ay soo akhriyeen kadib markii loo qaybiyay sidoo kalena waxaa maanta miiska saarnaa sharciga shaqaalaha rayidka Galmudug oo ay soo diyaariyeen guddiga shaqaalaha rayidka Galmudug intaasi kadib ayaa xildhibaanada baarlamaanka Galmudug waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sharciga miiska la soo saaray akhrinta koowaad hadii loo akhriyo awalan horta ajantii dad ku soo darteen gudoomka atiin aqbalnay ajantii naloo qaybiyay akhrinta koowaad uu maray xaqiga sharciga ku qoran xeeroosaadku wuxuu dhigayaa in guddiga ku shaqada ay gacanta loo geliyo hadana talaabada ugu horeysa loo baahan yahay in hadii dikratada hore la isticmaalay haduu madaxweynuhu soo cusboonaysiiyana in ay tahay waxa laydinkaga baahan yahay in xubnihii guddiga oo dhammaystiran baarlamaanka la horkeeno marka la ansixiyo kadibna la galo shuruucda sharciyaadkan la soo hordhigay waxaan xaq u leenahay xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay soo akhriyaan ka bacdina wixii ku darisiya ka dhimis ah ay ku soo daraan ka soo fakaraan doodaan dood ka ballaaranna aan isku imaan doono gudoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka Galmudug Aamino Sheekh Maxamed Faarax ayaa waxa ay sheegtay in sharcigani muddo uu xayirnay in la horkeeno baarlamaanka Galmudug iminkana ay u suurta gashay sanadba bilba bisha ka dambaysa anaga waxaan isku day jirnay in baarlamaanka la kulano ama wasiirada la kulano laakiin uma suurta gali jirin wax kasta oo shaqo naga xirantay xitaa waxay nooga xayirnaayeen sharciyadan aan meel marsaneen anagana isku dayga naga ma yareen anagana ma shakhsiyaadka oo sharcigan ama xeerkan oo tarayo waa state wuxuu qabanaya ama waa maamulka ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed ayaa waxa uu sheegay in sharcigani laga doodayo isla markaana loo baahan yahay in la meel mariyo guddigan hore u soo shaqeeyay ilaa hadda uu soo shaqeynay hadii dood laga qabo baarlamaanka wasiirka uga yarta madaxweynaha uga yarta halkaas soo istaajiyay laakiin sharcigan waqtigiisa dhacay oo shaqaalaha Galmudug looga faa'iideynayo soo akhriya wixii doonka qabtaan keena baarlamaanka Galmudug ayaa muddooyinkii la soo dhaafaba waxa uu qabanayay howlo fara badan kaas oo hor yaala baarlamaanka isla markaana laga doodayay iyadoona howlahaasi maalmaha soo socda ay sii qabsan doonaan